mari waxay la kulantay nin qoortiisa qooro ku leh. maanta ayay isbarteen. waxay ku jireen shukaansi oo lagu qaatay makhaayad. markii uu ka bixiyey shaaribkiisa waxay indhaha ku aragtay burooyin yaab leh oo qoortiisa ka soo baxsan. mari way argagaxday laakiin si aysan xaaladdu u qalafsanayn waxay isku qasabtay inay la hadasho. laakiin indhaheedu kama bixi karin qoorahaas qoorta uga laalaaday. nasiib darro cid kale oo makhaayadda joogtay saas uma arag, taas ayaana mari ka sii dhigtay mid walwalsan. goordhow waxaa loo keenay cuntada. mari waxay isku dayday inay adeegaha u muujiso, ninkan hortayda fadhiya waa qof iska yaab leh ee fiiriya. laakiin markii dambe waxaa la ogaaday in ninka ay la fadhiday uu yahay milkiilaha makhaayadda, sidaas darteed adeeguhu waxba kama oran karin. kadib ninku si kama ah ayuu maraq ugu daadiyey qoorihiisa yaabka leh. mari si degdeg ah ayay uga digtay, waxaase yaab noqotay markii uu ninku marada ku masaxay dabadeedna wuu nuugay. mari waxaa ku dhacay lablaba. arrimuhu intaas kama harin. intii ay cunayeen saaxiibkiis ayaa yimid, waxayna wada bilaabeen sheeko. mari weli waxaa maskaxdeeda ku jiray ukumaha qoorta. waxay rabtay inay weydiiso, laakiin markaasuu ninku kor u qaaday ilmaha saaxiibkiis wuxuuna si kedis ah u dhigtay kubadihiisii qoorta ku yaalay madaxa ilmaha. waalidiinta ilmaha waxba kama aysan xanaaqin. taasi mari way sii argagaxday. saaxiibkii ayaa markaas ogaaday in ay ku jiraan shukaansi, wuxuuna damcay inuu sawir gacmeed qaado. mari rabtay inay diido, laakiin ninkii ayaa ku soo leexday oo sawirka galay. kadibna waxay yidhaahdeen aan mid kale qaadayno mid isku dhowaansho. ninku degdeg ayuu u xusuusiyey, tani waa kulankeenii ugu horreeyey, barafuunka fooda keliya waan isku dhufan karnaa. ka hor intuusan hadalka dhammayn ayuu mari foodeeda qabsaday oo dhunkaday.